duqa caasimada Gabiley ahla gudoomiyaha golaha deegaanka degmadani Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo isagu mudooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dalkaasi Sweden ayaa ka soo laabtay safar shaqo uu ku tagay Sweden. Amiin Cumar Cabdi oo waqti xaadirkani ku sugan magaalada Gabiley ee xarunta u ah gobolka cagaaran ee Gabiley ayaa waxa uu ka hadlay ujeedada safarkiisaasi uu la xiriiray iyo waxyaabaha u soo qabsoomay duqa caasimada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo isagu ka hadlaya ayaa yiri waxaan jeclahay halkan inaan ka warbixiyo safarkii aan dhawaan ka soo noqday. waxa safarkaas safar kooban oo muddo kooban aan ugu maqnaa. runtii ujeedooyinka aan u tagay waxa ka mid ahaa dhowr qodob. dhowrkii qodobna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga mahad celinaynaa runtii inuu waxa weeye ay wax nooga soo wada suura galeen. ahayd dalkaas waa dalkii koowaad oo dalka horumaray in inagoo dalkeena qurba jooga kaashanana aynu dhinacyo kala duwan uga faa'iideysano si aynu horumarka iyo waxa weeye uga dayano waxa weeye inagu dhaamaan. shay kastaaba bilow buu leeyahay. bilow fiican ma runtii soo sameynay gaar ahaan Gabiley hadda waxaanu rajaynaynaa oo xiriir wanaagsan iyo bilow fiican oo soo bilaabmay magaalo kamid ah dalka Sweden Shalaftiyo loo yaqaano oo rajaynayno mustaqbalka dhow in mar labaad aniga iyo xubno kamid ah golaha deegaanka aanu safar ku tagi doono si aanu u jaan qaadno hirgelinta mataanaynta labada magaalo inaan dadka fursadaha dhaqaale ee iyaga laftooduna fursad u noqon karasa ee gobolka yaalan aanu ku baraarujino isla markaana doorkii horumarneed ee ay iyagu ku lahaayeen aanu ku baraarujino 95% magaalada inta golaha deegaanka ee Gabiley oo qori jiray inta laamiye ka samaysan iyo bariisha iyo garoomiyo weydii ka arkaya waxaynu u baahanahay in dadka reer Gabileyna ku adkeynaya wax weeye haday tahay ganacsato iyo haday qurba joogba tahay in doorkooda maqay. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba muuqaal maqalka caalamiga Kelson TV gobolka cagaaran ee Gabiley.